الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo hawsha doorashada iyo tirinta codadka meesha ay marayso bismillaah aniga oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha waxaan shacbiga Soomaaliyeed ururada siyaasadda warbaahinta iyo dhammaan daneeyaasha doorashooyinka la wadaagaya in geedi socodka tirinta gudbinta iyo hubinta natiijada doorashada isku sidkan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si habsami leh u socdo iyadoo dhammaan hawlahaas loo fulinayo sida waafaqsan sharciga doorashooyinka qaranka guddigu wuxuu xaqiijinayaa in si waafaqsan qodobka 61 ee sharciga doorashooyinka qaranka ay si rasmi ah u dhamaatay tirinta codadka goobaha codbixinta xalay saqdhexe sidoo kalena waxaa xalay saqdii dhexe si buuxda loo soo gabagabeeyay hawlaha ku xusan qodobka 26aad ee sharciga ee la xiriira soo xirista iyo soo gabagabeynta tirinta codadka goobaha codbixinta oo ay shacbiga dowladda Koonfur Galbeed codkooda ka dhibteen waxaa sidoo kale alla mahadiis ah in saake aroortii 6 subaxnimo ay si nabadgelyo ah oo nidaam leh u soo xaroodeen dhammaan agabyadii doorashada goobaha loogu talagalay ee xafiiska degmooyinka guddiga iyadoo arintaasi la fulinayo si waafaqsan qodobka 65aad ee xeerka doorashooyinka qaranka dhanka kale guddigu wuxuu xaqiijinayaa in dhammaan natiijooyinkii goobaha codbixinta loo soo gudbiyay si waafaqsan qodobka 64aad ee sharciga doorashooyinka dhanka kale guddigu saacadan aan warbaahinta la hadlayno guddigu wuxuu gacanta ku hayaa hawlaha hubinta iyo iswaafajinta natiijooyinka goobaha codbixinta iyadoo hawlahaasi lagu fulinayo si waafaqsan qodobka 66aad ee sharciga doorashooyinka qaranka marka la soo gabagabeeyo hubinta iyo isugeynta guud ee natiijooyinka gudoomiyaha guddiga doorashada qaranka waxa uu xafiiska dhexe ee guddiga ku leeyahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu si ku meel gaar ah ugu dhawaaqi doonaa natiijada hordhaca ah ee doorashada muddo ku dhisan sida sharcigu qabto 4 saac gudahood laga bilaabo maanta iyo marka ay soo dhamaato hubinta sharciyada iyo farsamada socota dhanka kale waxaa xusid mudan in ilaa iyo hadda aysan jirin wax cabasho rasmi ah oo sharci ahaan loo soo gudbiyay guddiga kuwaasoo la xiriira jiritaanka cabasho ka dhan ah ama la xiriira ku dhaqan la'aanta habraaca codaynta ama maamulka goobaha codbixinta oo ay dhammaan wakiilada ururada siyaasadda ee goobaha jooga ee si dhow ula socdeen geedi socodka codaynta iyo tirinta codadka sidoo kale guddigu wuxuu shacbiga Soomaaliyeed warbaahinta iyo dhammaan daneeyaasha doorashooyinka xasuusinayaa inaysan jirin cid aan ka ahayn guddiga oo sharci ahaan awood u leh ku dhawaaqista ama baahinta natiijooyinka doorashada sidaa darteed ururada siyaasadda warbaahinta shakhsi kasta oo baahiya ama sheegta natiijo aan rasmi ahayn waxay wajihi doonaan talaabooyin waafaqsan sharciga dalka u dhigan ugu dambeyn guddigu wuxuu wadaa baaritaano ku saabsan xogaha soo gaaray ee tilmaamaya in qaar ka mid ururada siyaasaddu ay ku xadgudbeen xeerarka habdhaqanka iyo anshaxa doorashada iyadoo sameeyay falal u eg ololo doorasho gudaha ama hareeraha goobaha codbixinta maalinka doorashada haddii arrimahaasi la xaqiijiyo guddigu wuxuu qaadi doonaa talaabooyin waafaqsan sharciga kuwaasoo isugu jiri kara digniin canaan ama ganax lacageed guddigu wuxuu markale u mahadcelinayaa shacbiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ciidamada amniga shaqaalaha doorashada warbaahinta ururada siyaasadda ururada bulshada reerka Koonfur Galbeed iyo dhammaan daneeyaasha kaalintii ay ka qaateen qabsoomidda doorasho nabdoon hufan oo nidaamsan wabillahi tawfiiq soo ma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba oo kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay hal taabasho oo kaliya